mudane boqorkii weynaayo Hiraql waxaa ku yimid Gaza iyo Shaam kaaga imaaday safar ka mid ah safarada Quraysh waxaana hogaaminaya Abu Sufyaan. waa mid ka mid ah hogaamiyaasha Quraysh, diinkiina nama raacsana, diinkii Axmedna muusan raacin, waana mid ka mid ah cadowgiisa. waa kee midka ugu dhow qabiil ahaan midkaan sheeganaya inuu yahay nebi? aniga ayaa xiga qabiil ahaan, waxaan ahay Sakhr bin Harb bin Umayya bin Cabdishams bin Cabdilmanaaf. ii soo dhawow aniga, adinkuna istaaga gadaashiisa. su'aalo ayaa weydiin doona ninkan, haddii uu been sheego ku beeniya. wallaahi haddii uusan ahaan lahayn xishood ka mid iga hor istaagaya beenta, waan ku been abuuran lahaa. qabiilkiisa dhexdiina waa sidee? waa nin qabiil leh. mid ka mid ah beeshiis miyaa boqor ahaan jiray? maya. kuwa sharafta leh miyaa raacay mise kuwa masaakiinta ah? waxaa raacay kuwa masaakiinta ah. ma sii badanaya mise waa yaraanaya? waa kuwa sii badanaya. qof ka baxay ma jiraa markii uu baray diintiisa? maya. qof ma ku tuhmay inuu yahay beenaale waxa uu dhihi rabo inta uusan dhihin? maya. wax ma qiyaameeyaa? maya. waxa uu idiin sheegay qof uu idinkugu sheegan jiraa? maya. ma la dagaashay? haa. dagaalkii aad la gashay siduu ahaa? dagaal baa naga dhexeeya, marna waa guulaystaa marna waa ka guulaysataa. muxuu idiin amraa? waxa uu na amraa salaada iyo rusheegidda iyo dhowrsanaanta iyo qaraabo xiriirinta. waxa uuna dhahaa alla keligiisa caabuda oo waxba ha u sharig yeelina. waxaan ku weydiiyey qabiilkiisa, sidoo kale waxaan ku weydiiyey ma been baad ku tuhintaan mise khiyaano? waxaan ku weydiiyey ma waxaa raacay kuwa danyarta ah mise kuwa la sharfo? wax kalena iguma aadan jawaabin ilaa tilmaamihii rususha mooye. waxaan ku weydiiyey waxa uu idiin amro, waxaadna iigu jawaabtay in allah la caabudo shirkigana la waayo. waxaad ii sheegtay haddii ay dhab yihiin aniguna aan ahaan lahaa mid agtiisa joogo waxaan dhaqi lahaa lugihiisa. nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee sala allahu calayhi wasalam. muxamedun rasuulullah.